galabta routiinkeena waxaan qabanayno iyo shaqada guriga aan ka qabanayno nolosha baadiyaha ama miyiga. Fuustooyinkaas biyaha waxaa laga dhaamiyay xareedii roobkii hadda ayaa laga dhaamiyay. Roob baa yimid inta cashada dabka aan ku shubaynay ayaa roob yimid halka xari baa cararaya. halka waxa ka soo ordaya arigii kale isagana saaka la raacay. Dabkii maanta dhan shuushaaminayna iska dhigna gabdho balaa ka dhacday casho kariya. Cashadaas ma soo socoto omeeka roob huu soo socdaa. Haddii roob badan u yimaadana sheegin casho ma jirto. waa dhardaday ma kari waa caacay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waqti kasta idinta wacan wanaagsan. Maanta ku soo dhawaada jawi qurux badan iyo maxay tahay baadiyihii oo roobsaday in badan abaaro waa lagu jiray meelo badan weli abaaro weeyeen. Marka Ilaahay baan ka baryaynaa roobkin Ilaahay noo soo badiyo oo intii wadanka abaaraysan oo dhan Ilaahay abaartu ka saaro. Galabta routiinkeena waxaan qabanayno iyo shaqada guriga aan ka qabanayno nolosha baadiyaha ama miyiga. Ku soo dhawaada halkaas aad arkaysaan waa baadiyihii ama miyiga aan ka soo warrami jiray dhaxar carari jiray. Maanta shaqada anigu ma haya gabar yar oo kale iga fudud waan cuslaado waxaan shaqadan saan wada waan daalee. Gabar yar ma sha Allah waa shaqadii qabsanaysa ama hawshii guriga gabar naagis ka dhigaysa galabtay. halka calaba caag baa la wadaa biyaha la doonayaa xilliga waa xilli casarkii bacda casarkii biyahana waxaa laga doonayaa meel cabeer jirta oo fuustooyinka ay yaalaan oo isla tagi doonaa. Marka ma sha Allah xilligu waa xilli roobaad saan idin sheegay cirka dhan waa roobaysan yahay. meeshana waxa weey roob mar dhow ku da'ay naqi wili uu soo wada bixin qayb wili ay soo baxday meesha waa meel raysa adiga dhowr bari ka hor roobku ku da'ay geedi waaweynaa qaar yar baa cagaartay kuwa yar yar. Waxaan ku socdaa wadadaas aan ku socdaa maxaa u taqaaniin shaag ama xagaaf ama wado ama dhabo intaba waa la yiraahdaa. marka meesha biyaha waa imaanay haamankaas u jeedaan ama fuustooyinkaas biyaha waxaa laga dhaamiyay xareedii roobkii hadda ayaa laga dhaamiyay. meesha idin muuqata wadada ayaa laga dhaamiyay biyaha nadiif bay ahaayeen dhul nadiif weeye. wadadana baawur way maraan laakiin ma badna mar dhifa ay baawurtu soo maraan. marka biyihii roobkii isagoo cusub ayaa laga dhaansaday nimcooyinka wadanka ka mid tahay kadibna fuustooyinka xaggaas yaalaan tubadaas ayaa lagu dhuuqayaa. Reemigana inta badan saan idin sheegay awrtii waxaa berora laga tagay reer walba fuustooyin baa u yaala ama waxaan kale biyaha lagu shubto baag ama waxa la qarbad maalaha ma iska magacay badan yahay. marka xilliga roobkana way ka faa'iideystaan oo hadda saan idin sheegay meesha biyo way ka gureen meesha idin muuqata biyo ka sii muuqdaan ama way ka go'een ayaa laga dhaamiyay. biyuhuna waa biyo xareeda macaan ma sha Allah dadka qaar baa laga yaabaa meesha nadaafad biyo sidee loo cabayaa waa nadiif meesha roobkii nadiif oo dhulkii soo maray weeye. marka biyo soo qaadanay guriga waa xaga ka muuqda ugu dambeyn guriga nimaadnay jawi aad u fiican waxa weeyaan ko lagama sheekeyn karo qofka joogaha garanaya ee jawi roobaada. marka biyo waan keenay hadda cashadii baa la diyaarinayaa roobna uu nagu soo socdaa roob muuqaalka arki doontaan waxa nagu dhici doona jadwalkii shaqadii noo degsaneed oo dhan waxa nagu dhici doona. marka halka dabka lagu shitaa waa jikadii ama dabshidkii ama kushinkii Soomaalida ay iska badan yihiin lahjadooda. marka digsigii baa la sii dhaqayaa digsigii madoobaa muuqaalo badan ama rootiina badan oo soo sameeyay dadka qaar ba waxa malaan digsiga ama kirliga madow yani nadaafad daro oo qaar ugu dhayn digsi madow ma kirli madow baa inta la soo fadhiistaa iska dhaq. kirliga iyo digsiga madow waa dhaqanka Soomaalidu ka mid yahay baadiyaha lagama fujin karo qorya ama xaabo wax lagu karinayaa. marka haddii mar walba la xoqo la fujiyo markasta la xoqo xitaa weelashu ku dhamaanayaan marka way ugu tala galeen weelasha meesha gudaha ayaa laga nadiifiyaa korna waa dhaqankana Soomaalida iska bartay waa wax dhaqana ma fahanteen araabanimaha noo maleynay digsiga waan soo dhaqanay dabkii baa la shidayaa dabka kibriid baa laga shidayaa ama taraq. dad baa kor mar soo kale soo dheen dabka ma aasataan dabka xilliyo waxa jira dabaylo oo dabku una noolaaneen oo daxta aastid oo ku noolaaneen. marka anaga dhibkaas oo dhan ma geli karna xitaa meesha aqal baa ku yaal carruur baa joogta maxaa dabduugido dhan ma fiicna wax dabayl wax walba iska dhici kartaa ilmaha waxaraha intaba xaalad walba iska imaan kartaa. marka taraqa ama kibriidka ayaa la soo qaadanayaa isla markaas hore laga shidanayaa dhib ma jiro bacdaasna lagu la sii baxayaa. marka ma sha Allah galabta joogayna sidaan buu ahaa
asxaabta waxaan leeyahay muuqaalka like saara insha Allah muuqaaladeena way noo bilaabanayaan muddo maana soo gelin channelka wax ama muuqaalo maana soo gelin waa isku xiisnay inkastoo Facebook aan u badnaa xagga Facebook aan u badnaa marka 200 wax yar baa iga dhiman asxaabta ugu cusub waxaan leeyahay subscribe-ka saara oo share gareeyo xaafadaha dhan ka soo saara like tan ayaan la hilmaamin oo lambar 1 ha noqoto ama lambar 1 like marka saawda muuqaalka u furta cabaar daawatid bina sii saartid dabkii marka waa shidanay geedkaas lagu shidayaa dabka oo lagu dujinayaa guriga waa ka roob baa soo socda carrada dhan xilligu waa xilli casr bacda casr ahayd wili xitaa 12 ma dhicin habeen baa la moodaa marka shaqada waxaan ka bilaabay shaqo badan baa la qabanayaa oo shaqada galabtii baadiyaha qofna subaxii uu guriga joogaa hawla ka qabtaa qofna subaxii galabtii buu joogaa waa sida magaalada kale dadka qaar xoolaha raacaan dad baa guriga ku haraya marka dadka guriga ku haraya shaqooyin badan bay qabanayaan xaraha la xarxareynayaa banaankii baa la xaaqayaa ama ardaygii baa la sii xaaqayaa weelkii baa la xalayaa ama alaabtii baa la dhaqayaa cashadii baa dabka la saarayaa sheex baa la karinayaa yacni hawl baa taala meel kasta hawsh way ka jirtaa magaalada oo kaliya u maleynina marka dabkiina waa babisanay cashadii xagga dabkii baa aan ka saarnay kadibna waxaan rabnaa shaqooyin badan oo kale ina ila aragtaan maanta shaqada aniga waan ka nastay wax badan aniga dadka waa hor imid marka waa ka waxaan karsanaynaa digir baa la karinayaa xilli roobaad baa lagu jiraayo digirtuna energy bay leedahay xilliga qaboobaha aad bay u fiican tahay marka digirtii baa dabkii ku soo shubanaynaa laakiin taariikh baan ugu dhici doonta roob baa yimid inta cashada dabka aan ku shubaynay ayaa roob yimid halka xari baa cararaya waxari halka lagu ilaalinayay roobkii markii arkeen dhibicdiisa roobka marka roob badan ma ahan oo cirka dhan hortu soo xirxiray laakiin wada ayaa kaamirada si fiican ugu dhex muuqdo daruur baa korkeena ka da'day aanan filayn daruurtaas idin muuqata korkeena ka da'aysa halka waxa ka soo ordaya arigii kale isagana saaka la raacay maqnaa maanta dhan lala maqnaa ayaa isagana xiradiisa ku soo cararaya ha sheegin baan kurday wixii aan shaqo qaba lahayn yaa wax okori alaab aruuri hataa markii hore cabaaraan alaab kala aruurina meesha ku kala oradnay kadib baa kaamiradii soo jeestay marka ariga xiradiisa wata xirada halka ku sii aruuraya waxaray xitaa waa la isku daray kala sooc ma jirto xari guriga laga celinayaa arigina xagga soo socda xariga guriga alla maxay xaraha guriga jecelyihiin yaa meesha ilmaha ay dadkii joogaan waxaro waa ilmo kale guriga baa laga celinayaa roobku waqti wadanku waa wada roobaysan yahay ilaahay roob qeyr qabahna siiyo dad badan baa wili helin dadna way heleen inkastoo inta badan ay meel ka daa'ay marka ugu dambeyn ariga xiradiisii buu yimid waa kana xilli hore xilliga waxa la moodaa hadda habeen baa la moodaa laakiin waa casr dheer ariga inta badan maqribadii ama bacda maqrib ayuu xirada ku xaroo jiray laakiin maadaama uu roob yimid ariga uu dhaxmoonaya waliba ariga xilli adag oo jiidaal ama abaar ka soo baxay uu iska jilicsan yahay roobka marka aad iskaga maceli karo markuu uu arigu dhargo calooshiisa buuxsanto ayuu inta badan roobka iska celiyaa inkastoo hadda marka qaar bac loo xiro isna la okoriyo laakiin hadda maba loo xirin halkan waxa ku jira dabkii maanta dhan aan shuushaaminayna iska dhigna gabdho balaa ka dhacda casho kariya cashadaas ma soo socoto ka roobku soo socdaa hadii roob badan uu yimaadana sheegin casho ma jirto marka galabta jadwalkii iyo routiinka wax badan baan la wadaagi lahayn ama nolosha sida xaaladdu shaqada galabtii xaggaas nooga xumaaday qeyr badan baan nirijiinaa muuqaalka like sii saara aniga xitaa waa dhardaday ma kari waa caacay waan sii xaroonayaa qeyr badan baan nirijiinaa